kolka uu qofku la kulmo cid ka sheegaysa ama ku sheegaysa waxaanu ahayn ama lahayn cid maagaysa, dhaliilaysa ceeb iyo boogo aanu lahayn marmarinaysa, iskama dhaafi karo. Uu ku hakanayaa su'aal baana ku soo istaagaysaa. Maxay kaa rabaan? Waayo, maxaa waxaan lagugu sheegayaa? Waxani ma kugu dhabbaa? Sida dhacda ay u badan tahay waxa dhici karta in dadkani aanay qofka ku maageen sabab sugan, caqligal ah oo loo garaabi karo. Sida aynu dhahno way iska maagayaan. Laakiin intaasi qacdo hore qofka ma qanciso. Waa in uu sabab u helo haddii aan sabab la sheegaa jirinna. Waa in uu mid u alifo. Marxaladda su'aalahaasi imanayaan waa isgoys ay dadku ku kala baydhaan. Waxay ku kala duwan yihiin sida ay u falceliyaan kolka ay gidaarka ka soo go'aan. Gidaarka ah in bilaa sabab loo daandaansanayo loo maagayo waxaas yacaya aflagaada ah ee aanay geyinna loogu miisayo. Qola waxaa laga yaabaa inay isdhaafiso ama aanay isku sii weynayn oo ay hawlaheeda kale ku sii foofto. Hase yeeshee dad badani waa qolyaha kale way dul istaagaan oo isku cusleeyaan. Wax iska dhacaa ma jirto ee waa inaad ogaataa sababta lagu maagayo. Ayaa noqota fariinta ay isku diraan isku tirtirsiiyaan. Inta badan go'aankan ma dhaadana ee maskaxdooda ayaa u gaadha. Waxay dabadeed galaan socdaal ay ku baadigoobayaan sababta. Ma ahaan karto qofkiyo waa inuu wax ku gamco. Haddii kale ma gamcayo. Waa inuu marun isdhaho allaylehe heshay sirtii. Haddii kale waxay noqonaysaa waran ku taagan iyo laf dhuun gashay. Daqiiqadda uu qofku isku xilsaaro baadidoonka sababta waxaan sabab lahayn, waxay xaaladiisa guud iyo tiisa maanka iyo nafsaduba gelisaa weji kale. Waa dhan kale oo habdhaqankiisa, habfakirkiisa iyo habdareenkiisaba saamayn doona oo qurquri doona. Qofka waxa ku bilaabma in uu si dusha marka laga fiirsho aad caqligal u ah. Waxay sugu gegeysto oo uga baaraan dego sababaha ay sabab muuqataa u jira la'dahay iyo waxay taqarsooni noqon karto. Waa inuu isagu meeshii ay sabab la'aantu ka jirtay ku buuxiyaa sabab jeebkiisa ah. Xasuusnow in qofku inta badan hawshaas oo dhan ama badankeeda aanu daadanayn. Waayo maskaxdiisa ayaa hawlgalkaas sirta ah galaysa oo u xilsaaraysa cul gaar ah oo sahamiya jawaab waafiyana ka keena sababta qofkan loo dhibayo. Waa hawlgal sabab la'aanta gubaysa ka bogsiin doona. Waana shaqooyinka asaasiga ee maskaxdeenu inoo qabato inay qarka inaga soo qabato inagana badbaadiso qalalaasaha macno darrada. Hawlgalkii natiija ayaa ka dhalata oo laga dhaliyaa. Waxbaa qofka u soo baxa sabab baa u bidhaanta. Sabab samays ah. Maadaama oo dadkan dhaliilaya ay kala duwan yihiin oo fara badan yihiin wax mideeye oo muuqdaana aanu jirin, lagana yaabo inaanay isu warhaynin. Waxa gunaanadku noqdaa in waxa kaliya ee sugan ee aanay ku kala duwanayn uu yahay isaga laftarkiisa. Dadkani qodob bay cugsanayaan. Waxaasoo ruuxa ma jirto iskuma waafaqi karaan. Adiga ayay galdalooladu ku fadhidaa. Ayaa noqota halku dhagga jawaabtiisa. Waa haddii aanu u fasiran in waxaasoo dadii ay abaabulan yihiin oo loo soo diray isagana loo dan leeyahay. Mar haddii uu qofku isku qiro inuu leeyahay in iyo nabar ku yaalla oo dadka kale u soo wulwulaya oo u laacaya isla markaana soo jiidanaya oo sahlaya dhaliishooda. Kadibna sababaya in la hujuumo oo si shakhsiya loo beegsado. Isagoo oo laga yaabo in aanu go'aankaas daadanayn oo duunkiisa hoose uu taladaas u gooyay. Haddiiba uu qofku heerkaas gaadho waxa uu bilaabma geedi hawkar iyo xanuun kulul oo toostiisu ay ka soo daahirto. Intii xisaabtu xiskiisa ka socotay waranku ku taagnaa ee uu la waliilayay foosha sabab raadinta, hawlgalku waxa uu ahaa mid aanu u baraad lahayn. Natiijada ka dhalatayse waa mid isaga u muuqata oo ka muuqata. Geedigaas xanuunka badani waxa uu si ama si kale u bedeli karaa sidii uu isagu isu arkayay iyo sidii uu dadka kale u arkayay, sidii uu naftiisa ula dhaqmayay iyo sidii uu ummadda kale ula macaamulayay, wixii uu dareemayay iyo sidii uu dareemayay iyo sidii uu u fakarayay. Wada sheekaysiga gudaheed ee daaranaa sabab u raadinta sabab la'aantu waxay qofka u abuuri kartaa shakhsiyad hor leh. Halkan bay ka bilaabmaysaa kolka in qofka ay wax isu sawiraan, inuu xisaabo isku dhufsado, inuu bacoobo, inuu qaaqaayiro, in dabeecaddiisii ay istooriso. Gunuunicii gudihiisa iska soo tarayay baa soo fataa oo maskaxdaa soo daacda. Laakiin weli waa wax aamusan oo aan la faahfaahin karin, waayo isaguba ma yaqaano. Cid kalena garan mayso sababta uu sidan isugu beddelay. Waxaa laga yaabaa in lala yaabo qofka oo degdeg u camal xumaada ama sida aynu dhahno aan fadhiyin. Waa natiijo muuqato oo ka dhalata hanaanaan muuqan. Waa raad la dareemayo oo ka yimi. Waxaan jiritaankiisaba la ogeyn. Su'aalihii maankiisa ku takhlanaa. Haddiiba dacarta gudihiisa ka soo warshadaysantay ay bannaanka u soo dhaafto, waxay qaabaynaysaa qof ahaantiisa oo imika ma aha sidii uu ahaa intii aanay su'aaluhu helin.
hawl baa u kowsatay. Male aan sugnayn natiijada laga soo dhiraandhirinayo ma sugnaan karto. Sidaa awgeed waxaynu arki karaynaa nafsadii qofka sidii uu u fakarayay, sidii wax u dareemayay, sidii uu u dhaqmayay oo dhalan rogmaysa dheellin muuqdaana uu galayo. Xilligeennan ay xadhkaha goosteen baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho ee uu qofku ka mid yahay bulsho mala awaal ah oo badanka xubnaheeda aanay toos isu gaadhayn haddana ay aad isu saamaynayaan. Qodobkan aynu ka hadlaynaa waxa uu ka tegayaa eel aan isleeyahay uu ka daran yahay ka uu kaga tago nolosha caadiga ah ee ka baxsan internetka. Markan waxay qofka wada falgelayaan saaxiibo iyo xer aanay is arag ama hagaag isu aqoon, marar badanna aanay isba aqoon, oo qofkaba jiraalkiisa uu ku urursan yahay akoonkiisa. Ruuxii waxay macaamilayaan oo ereyadoodu isgaadhayaan akoonno aanu hubin inay nolosha caadiga ah sidan uga jiraan, ama inuu qof kaliya leeyahay dhowr akoon, iyo in kale. Wuxuu ka dhigan yahay qof fadhiya maqaaxi ay ka wada shaahayaan dad ay is yaqaanaan iyo kuwo kale oo aanay isba garanayn, laakiin si ka duwan nolosha caadiga ah. Markan macaamiisha faraha badan ee aanay macrifadu ka dhaxayn inta ay soo kacaan oo miiskiisa yimaadaan ay waxay doonaan ka sheegayaan, isaguna intuu istaago uu tiigsan karo wada sheekaysiga miiska 15aad ka socda. Waa duni aan lahayn kala xadaysanka lagu yaqaanay adduunkeena caadiga ah. Waa caalam uu ka oogan yahay faldhaqan u eg wacdi doorsoon, sida sheekada Ibrahim Hawd uu magaceeda u yahay. Taasina waxay badinaysaa fursadda ay qofka isaga soo horbixi karaan akoonno aanu waxay yihiinba garanayn, oo maagaya ama dhaliilaya ama aflagaadaynayaba. Akoonnadaas aan la kala sixi karin inay abaabulan yihiin iyo in kale, ee u dhaqanka eegdablaydii aan haybtooda la garanayn aynu idaacadaha ka maqli jirnay, waxay hadda awood u leeyihiin inay qofka saaxaddiisa gaarka ah ugu soo daataan, inay fariin khaasa u soo qoraan, inay qoraal ku qoob xidhaan, inay faallo ku dhex xusaan, ama sida la dhaho ay uga yeedhaan muuqaal ama qoraal aanu si kale ku arki lahayn. Qofka magaciisa iyo sawirkiisa haddii ay u yaallaan, iyo aqoonsigiisa shakhsiga ay waxay baylah u yihiin in cid kasta ogaan karto, oo ay isku dhex fasaqmi karaan ciddii u dhoweyd iyo ciddii ka fogeyd. Qof kasta ayaa kale inuu baraha bulshada ka dacaayadeeyo ama kula kaftamo ama ku ammaanaba sidii dad ay is yaqaaniin. Sidaasoo kalena waxa uu awood u leeyahay inuu ku shaambadeeyo ama ku duro dhaliilo iyo maag aan qabanin oo xataa uu la dabagalo.